الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee telefishinka HBN qodobada aan idinkugu haynana waxa kamid ah mas'uul sare oo ka tirsan golaha hogaaminta ee ururka Xisbullah ayaa sheegay in ay heegan ku jiraan isla markaasna ka hortagi doonaan mashaariicda Israa'iil iyo Mareykanka ee ku wajahan wadanka Lebanon dhinaca kale ururka Xisbullah ayaa u sameeyay borodiqiya as hogaamiyihii ciidamadooda oo lagu dilay duqeyn shalay ka dhacday magaalada Beirut dhanka Israa'iilna heegan buuxa ayaa lagu jiraa iyadoo laga cabsi qabo jawaabo Xisbullah ay ka bixiso dilka ninkaasi waxaan idin soo gudbinaynaa sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan ururka Hamas oo dhanka Masar mas'uuliyiin ka socota kala hadlaya xaaladaha xabajoojinta marinka Gaza iyo xadgudubka Israa'iil ay wado boqolaal iskugu jira Israa'iiliinta mayalka adag iyo dalxiisayaal ayaa xadgudub mar kale ku sameeyay masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa ee magaalada Qudus ee la haysto waxaan kaloo eegi doonaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ka hadlay qorshaha uu soo jeediyay madaxweynaha Mareykanka ee lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka Ukraine dhamaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intaan hawada ku jirnay iyo falaqayntii ayaan idinku soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee Safari Remit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka UK si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah una adeegsato adeegga Safari Remit booqo website-ka shirkadda www.safariremit.com haddii aad ubadkaaga aqoon sare la jeclaatid halkaad aadi lahayd iyo kana waa American International High School ee ilmaha haatan u geyso waa aqoonta Kamal American International High School farciisa Nairobi waxa uu kugu bishaaraynayaa inuu ku hayo waxbarasho heer caalami ah oo aad qaadanayso shahaado la aqoonsan yahay isla markaana casharrada lagu bixinayo nidaamka waxbarashada Mareykanka haddii aad ka soo guurtay qurbaha ama aad la doonayso waxbarasho tayo wanaagsan carruurtaada American International High School waxa uu ku diyaariyay waxbarashada dugsiga sare waxa uu iskuulkan wada shaqayn la leeyahay hay'adaha waxbarashada Mareykanka iskuulku waxa uu ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada iyo shashada kaaga muuqda hoyga barashada diinta ee xifdul qur'aan online maadooyinka lagu barto waxa kamid ah quraanka kariimka higaada axaadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiirka quraanka iyo qaybaha kale ee culumta shareecada waxaadna helaysaa 24 saacba 5 maalmood oo kamid ah isbuuca dugsigu waxa uu bixinayaa cadayn waxbarasho oo aqoonsi leh ama shahaado faahfaahin dheeriya la xiriir WhatsApp-ka +252 633 145 maxamed cabdi oo wararkan isku soo duway ayaa qadka ku jira maxamed aan ku bilowno qodobada wararka ugu waaweyn gudoomiyaha golaha sare ee ururka Xisbullah Sheikh Ali Damush ayaa sheegay in ururka Xisbullah uu wali dhulka ka shaqeynayo iyadoo dalka ay soo wajaheen culays siyaasadeed iyo mid goboleed hadalkiisan ayaa waxa uu ku sheegay in xukuumadda hadda jirta ay tanaasul badan oo ay sameysay aan wax mirac dhalin oo ay u sameysay Israa'iil iyo Mareykanka wuxuuna ku doodayaa dalal ka baxsan wadanka ayaa wali Lebanon madaxa u suraya mas'uuliyadeeda saaraya waxa gobolka ka dhacaya oo Israa'iil ay ka dambayso wuxuuna intaas ku daray ururka Xisbullah wuxuu ku tali jiraa inuu dalka ka difaaco Israa'iil iyo mashaariicda Mareykanka ururka Xisbullahna qaabka hadda isu abaabulayso waa difaac hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo hoggaanka wadanka Lebanon cadaadis badan saaran yahay oo wadanka dhexdiisa ay ka jirto kacdoon iyo dhaqaale xumo waxaana cirka isku sii shareeraya xiisadaha ka jira koonfurta Lebanon ee xuduudka la wadaaga Israa'iil bayaankan ururka Xisbullah ayaa tilmaamaya in qorshe uusan jirin ay ku joojinayaan howlaha ay dhulka ka wadaan iyadoo Israa'iil ay dardar gelinayso weerarada dhinaca kale waxaa la amba qaaday aaska Xatiam Ali Tabatabaye oo ahaa hogaamiyaha ururka Xisbullah ku-xigeenkiisa ee Israa'iil ay khaarijisay wuxuuna ka socdaa tacsidaasi magaalada Beirut koonfurteeda
sawirro ayaa muujinaya ururka xisbullah xubnihiisa oo sida meydkii Tabatabai isla markaasna uu ku waran yahay calankii ka koobnaa huruudka iyo cagaarka ee ururka xisbullah lagu yaqaanay. hawshaasna waxay ka socotaa magaalada Beirut koonfurteeda. wafdi sare oo ka socda ururka Xamaas ayaa kulan kula yeeshay magaalada Qaahira ninka madaxda u ah ciidamada sirta, waxayna ka wada xaajoonayaan xadgudubyada Israa'iil ku sameynayso heshiiska xabad joojinta sida ila Falastiiniyiin ay sheegayaan. bayaankan ayaa kooxda ururka Xamaas ay xaqiijisay inay ka go'an tahay in la meel mariyo wejiga koowaad ee xabad joojinta. kulanka ay la yeelatay madaxa ciidamada sirta ee Masar Xasan Rashaad waxayna ku eedeysay Israa'iil inay wado xadgudubyo ka dhana xabad joojinta oo khatar gelin kara ama yareysan kara heshiiska. ururka Xamaas wafdigeeda waxaa hogaaminaya Khaliil Xaya oo madax u ah xafiiska siyaasadda, waxaana cad in loo baahan yahay qaab farsamo oo la kormeeri karo oo ay dhexdhexaadiyaashu meel mariyaan si xadgudubka Israa'iil loo xakameeyo. Israa'iil ayaa xadgudub ku samaysay heshiiska xabad joojinta ururka Xamaas la gaaray si joogto ah oo maalinlaana ugu samaysa ilaa iyo bishii Oktoobar, waxayna dishay in ka badan 300 oo qof. maamulka Qudus ayaa ku dhawaaqay 187 dadka deegaanada looga sameeyay Qudus iyo 678 dad dalxiisayaal inay xoog ku galeen masaajidka Al-Aqsa. Oktoobartii la soo dhaafay waxa ay daldalgeliyeen rabshadaha ay wadaan ciidamada Israa'iil iyo dadka deegaanada loo sameeyay ka dhana masaajidka Al-Aqsa ee bariga Qudus ku yaala. hay-adda warfaafinta ee Falastiiniyiinta ee Mata la yiraahdo ayaa waxay sheegtay 408 xadgudub in Israa'iil iyo dadka deegaanada loo sameeyay ay masaajidka Al-Qudus ku sameeyeen bishii la soo dhaafay. isla xaruntaasi ayaa diiwaan gelisay in ku dhow 19,000 oo dadka deegaanada loo sameeyay ah inay ku xadgudbeen bishii la soo dhaafay masaajidka Al-Aqsa, waxaana sii dardargelaysa tirada dadka xoogga ku galaya masaajidka oo ku sameynaya cibaadooyin iyo waxyaabo kale. weerar joogto ah ku haya masaajidka iyo xurmadiisa. wararka caalamkana waxaa ka mid ah dagaalka Ukraine ayaa hadda waxaad moodaa in ay jiraan warar la xiriirta xagga siyaasadda. saacadihii ugu dambeeyay waxaa soo dardargelaya xiriirka ay beesha caalamka sameynayso ee wax looga bedelayo qorshaha nabadeed ee uu soo jeediyo Mareykanka, iyadoo mowqifka wadamada Yurub uu yahay inay ku gacan sayraan qodobadan wada xaajoodna aan laga gelin maadaama Ukraine aynan wax xuquuq helayn, halka dowladda Ukraine ay wado inay xaqiijiso inay ka go'an tahay inay ilaashato madaxbannaanideeda iyo danaheeda qaran. aqalka looga taliyo wadanka Ruushka isagoo ka hadlaya taleefon kula hadlaya dhigiisa wadanka Turkiga Erdogan ayaa Vladimir Putin waxa uu sheegay in hindisaha uu Mareykanka soo jeediyey laga dhigi karo aas-aaska muranka lagu xalinayo. wuxuuna ku nuxnuxsaday madaxweynaha Ruushka in Ruushka uu soo dhaweynayo xal diblomaasiyadeed oo siyaasadeed. tanna waxay qayb ka tahay madaxweynaha Turkiga ayaa asna waxa uu ku nuxnuxsanayaa in dowladda Turkiga ay diyaar u tahay inay fududeyso in wada hadal toos ah ay isla galaan Ruushka iyo Ukraine. Turkigana uu qayb ka noqdo dadaalada lagu helayo nabad cadaalad oo waarta. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa madaxweynaha Ukraine u qabtay ilaa iyo November 27keeda in uu ka jawaabo hindisaha uu soo jeediyay 28 qodob ka kooban, taasoo ay ku jirto in Ruushka dalabaadkii uu Ruushka dalbanayay. dowladda Ukraine ayaa waxa uu ku tilmaamay in mowqifkeeda uu yahay mid xag jir ah. vulkaano ayaa ka qaraxday waqooyiga bari ee dalka Ethiopia
waa markii ugu horeysay muddo ku dhow 12,000 oo sano in ay vulkaanadaasi dib u qarxdo. vulkaanadaas ayaa waxa ay dabkeeda uu ka dilaacay gobolka Anfarta oo 800 kilomitir waqooyiga bari ku xiga magaalada caasimadda Addis Ababa ee xuduudka Eritrea ku dhow. waxaana la sheegayaa in dooxada Rift ay ka socdaan dhaqdhaqaaq xagga dhulka ah oo la leeyahay in laga yaabo in ay mas'uul ka tahay qaraxa vulkaanadaasi. waa tahay maxamed, waa mahadsan tahay. daawadayaashuna way mahadsan yihiin. mar kale ayaan soo dhaweynaynaa. daawadayaal, waxaan u gudbaynaa falanqaynta wararka iyo wixii warah ee degdeg ah ee soo kordha. ha yeeshee aynu ku hakanno qadar xayeysiina. xarunta barashada diinta islaamka ee casriga ah ee habka online-ka wax lagaga barto ee tawfiiq islamic online waxa ay leedahay 3 qaybood oo kala ah: qaybta higaada oo loo diyaariyey muddo cayiman, qaybta xifdinta qur-aanka kariimka, qaybta barashada shareecada sida xadiiska, fiqiga, siirada, naxwaha, tafsiirka qur-aanka iyo caqiidada iyo wixii la mid ah. waxaana dugsiga kugu diyaara macallimiin rag iyo dumarba leh oo u tababaran maadooyinka ay dhigayaan. faahfaahin dheeriya la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqda. ku soo dhowow xarunta alhidaaya academy and step ahead tuition. haddii horay iyo haddeerba carruur alle kuu hibeeyo tacliin waa lama huraan aqoonta hidaaya kaalay, hibada xifdiga iyo qur-aanka, halhaysta rabiyadda fiican, aqoontoon kala haraynba ileen mahuraanba weeye u kaalay hidaaya kaaba. xarunta alhidaaya academy and step ahead tuition ee magaalada London waxay bixisaa adeeg waxbarasho dhammaystiran oo loogu talagalay carruurta, dhallinyarada iyo dadka waaweynba. xifdinta qur-aanka iyo dhisidda akhlaaqda suuban iyo xiisadaha maadiga ahba sida tuushinka ilmaha iyo koorsooyin ingiliisha oo dadka waaweyna waa ku diyaar. haddaba fasalladu way xadidan yihiin. xaruntu waxay ku taallaa xaafadda Harleston ee waqooyiga galbeed ee magaalada London. kala xiriir telefoonada iyo baraha bulshada shaashada kaaga muuqda. ma ogtahay in hilibka yaalla suuqyada dalalka Khaliijka, Yurub iyo Mareykanka aad ka helayso magaalada Muqdisho? Somali Meat Company ku dooro hilib nadiif ah oo lagu qalay kawaan nadiif ah iyadoo la hubiyey badqabka caafimaadka xoolaha. hadda dalbo hilib geel, lo ama ari adigoo ka heli kara xarumaha Somali Meat Company ku leedahay gobolka Banaadir ama wac nambarka ku muuqda. soo dhawaada mar kale daawadayaal. weli waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa. maxamed, aan ku bilowna arrimahan xisbullah aan ku bilowno. dabcan barnaamij baynu ka diyaarinay oo caawa soo geli doona qaybta falanqaynta oo aan ku faahfaahin doono 4 ikhtiyaar ee u yaala xisbullah ee ay kaga jawaabi karto iyo Israa'iil cabsida ka jirta gudaheeda. laakiin hadalkan ka soo yeeray mas'uulkan sare oo ka tirsan golaha fulinta maxaa loo fasiran karaa markuu leeyahay waxaan ka hortegaynaa mashaariicda Mareykanka iyo Israa'iil ay wataan Lubnaan? hadalkiisa maxaa loo fasiran karaa maxamed? ururka xisbullah ayaa waxa uu aaminsan yahay dowladda Lubnaan in ay tanaasul fara badan u sameysay Mareykanka iyo Israa'iil, aynan waxba ka soo qaadaynin hubkeedana ay haysanayso. ay ka mid tahay in ururka xisbullah hubka laga dhigo. waxyaabahan soo kordhay weeraradan joogtada ay xadgudubyada Israa'iil sameynaysay oo muddo dheer ay waday ayadoo ay jirto ayaa hadda waxaa soo kordhay in mas'uul sare la dilay. waxaa kaloo muuqda in waddanka Lubnaan lagu iinmaalayo waxyaabo aad u fara badan sida khabiirada arrimahan la socda hadalku dhigayaan in dowladda daciifka ah ee Lubnaan ka jirta ee Joseph Aoun oo madaxda u yahay inay aad ugu nugushahay cadaadiska Mareykanka. waxaa intaa dheer in ururka xisbullah uu si buuxda u sheegay in qaabka uu u habaysan yahay ay tahay difaac uuna ka hor istaagayo mashaariicda ay wadaan Israa'iil iyo Mareykanka oo waddanka Lubnaan. ilaha qaar ayaa waxay sheegayaan Lubnaan ayaa waxa la rabay in ay gasho dagaal sokeeyo oo la isku jeediyo in xisbullah ay soo baxaan xoogag la dagaalamaya. hase ahaatee xoogagii dhulka laga abaabulay ayaa ku dhici waayey. waxaa kaloo ayadana dhibaato weyn ku noqotay ururka xisbullah in ay ku jiraan dad macluumaad sax ah heli kara oo la wadaagaya sida hadalka loo dhigay cadowga oo laba dhinac ah. dhinaca xisbullah in dad shaki laga qabo aad ugu dhow mas'uuliyiinta, dhinaca xukuumaddana la leeyahay waxa ay wada shaqayn furan la leedahay oo ismuujiya la leeyahay haddaad dowlad tihiin hanan karta ammaanka waddankooda.
waa inaan macluumaadyada la xiriira ururkan ay u yaqaanaan Maraykanka iyo Israa'iil argagixisada in laga adkaado, waana hawl aad u dhib badan. tan kale oo ayadan is soo taraysa ayaa waxay tahay Israa'iil ayaa waxaa ka socda feejignaan iyo maadaama nin mas-uul oo sare ah la dilay inay ka baqayaan khiyaaraad aan barnaamij gaara kusoo qaadana inay dhici karaan. laakiin khiyaar waxaa ku jira xisbullah markay rabto ayay dagaal gelaysaa oo waxay leedahay dulqaad istiraatiiji ah. waa gartay arrin waxaa soo hadal qaaday maxamed la xiriirta macluumaad in sida hadalka loo yeeray cadowga la siinayo, laakiin xisbullah waxaan ognahay sanad ka hor in hogaamiyaal badan laga dilay. hadda ninkan la dilay wuxuu bedelay Fuad Shukri, waxaa kaloo la dilay hogaamiyihii ururka Sheekh Xasan Nasrallah, ku-xigeenkiisii ama ninkii bedeli lahaa Hashim Safiyuddin, iyo ninkii asaga xitaa bedeli lahaa. waxaa la leeyahay ururka waa la dhex galay oo Israa'iil si fiican bay uga dhex adeegatay. sanad kadib miyaysan suurto gelin in arrintan wax laga qabto? weliba ninkan hadda la dilay waxaa la sheegaa inuu yahay hooyadiis inay tahay Lubnaaniis, laakiin asagu uu yahay Iiraani. marka nin waxaa la sheegaa inuu ahaa aad muhiim u ah markay timaado awoodda iska caabinta Falastiiniyiinta iyo Xuutiyiinta, kaalin weyn ku lahaa. marka ninka sidaas oo kale ah soo lama oran karo dayac baa ku jira, waana laga adeeganayaa. gantaalku wuxuu ku dhacay gurigii uu ku jiray oo keliya. Israa'iil hore ayay si buuxda ugu sheegtay, xataa inta aan la weerarin Sheekh Xasan Nasrallah toddobaad ka hor ayaa mas-uuliyiinta Israa'iil waxay ka hadlayeen inay yaqaanaan meesha uu joogo iyo goobta uu ku sugan yahay, marka ay rabaan ay khaarijin karaan. tan kale Israa'iil aad ayay ugu dheeraysaa ka dhex adeegashada waxa ay ku sheegtay cadowgeeda, oo waxay ururisaa macluumaad la xiriira lacag kasta ay ugu fariisato iyo wax kasta ay ku baxdo. shaki kuma jiro in ururka xisbullah dhexdiisa lagu jiro, laakiin xisbullah iyadoo waxaasoo dhibaato la kulmayaan ayay weli waxay maareynayaan in ay wax soo saarkoodana wadaan, is abaabulaan, kasoo kabtaan dhibaatadii jirtay, dembiyadana Israa'iil gelaysana u ururiyaan, fashilisana Israa'iil fidnada ay rabto inay Lubnaan dhexdeeda ka abuurto. markii qiimeyn la sameeyey dhinacyada la abaabulayo waa ku dhici waayeen inay xisbullah isku taagaan. waxaana muuqata in ma aha keliya xisbullah, Israa'iil macluumaad fara badan baa dhankeeda ka soo baxaya in xog ururinta xisbullah iyo Xamaasba inay khatar yihiin, oo heerkii laga filayay heerarka waaweyn ay marayaan. oo xataa waxaa jira barnaamij gaara oo asna aan soo dayn doono aan kaga hadlayno weerarkii 7 Oktoobar ay ururka Xamaas qaadeen, macluumaad inay ururinayeen muddo ka badan 5 sanadood oo la xiriira xeryaha militariga, saraakiisha. waxa ay daba galeen oo daba socdeen in ka badan 100,000 oo askari iyo dhaqdhaqaaqooda. marka Israa'iil xogta ay urursanayso iyo dhexgalka ay dhexgelayso dhinacyadan ay dagaal kula jirto, dhinaca kalena ma yareysanaya, ayagana xog bay ururinayaan. wada ogtahay xisbullah filmo waxay soo deyn jireen goobaha xasaasiga ah oo Israa'iil ku dhex yaala oo diyaarada drones ay soo duubeen. waad ogtahay in ay weerareen gurigii Al-Qasariya ku yaalay ee Netanyahu. waxa weeye labada dhinacba la isu naxariisan maayo. waxaan ayadana meesha ka maqnayn oo baraha bulshada laga heli karaa in Iiraan ay ka dhex adeegatay barnaamijkii nukliyeerka ee Israa'iil oo macluumaad fara badan ay soo deysay. waxa weeye xog ururinta iyo isdabagalka waxaad moodaa Israa'iil dhinaceeda kaliya inuu ahayn dhinacyadan kale inuu ka socdo. haddana waxyaabaha soo tarayaya waxay tahay Israa'iil markay dharbaaxisaas oo kale geysato ama wax weyn oo sidaas oo kale geysato, waxaa feejignaan la geliyaa wadanka oo dhan, sababtoo ah xisbullah waxay haystaan gantaallo culus oo gaari kara meel walba oo magaalooyinka waaweyn Haifa, Tel Aviv iyo magaalooyin kale ee xuduudka ku teedsan. arrintan kale ee la xiriirta fidnadana
waxaad moodaa weli xamaas xisbullah inay xeeleysanayaan ayagoo diidan qorshaha ay dowladda wadato, dowladdana ay qayb ka yihiin, sida uu afhayeenka baarlamaanka biri uu hadalka u dhigay. waxaa loo baahan yahay waddanka in laisku wado, in la ilaaliyo saddex xagalka dahabiga waxa ay ku sheegaan xisbullah ee ah shacabka, militariga iyo ururka xisbullah inay ka wada shaqeeyaan dalka sidii loo difaaci lahaa. si cad ayuuna u sheegay guddoomiyaha guddiga sare, golaha sare ee ururka xisbullah, in marka laga gudbo cadaadiska faraha badan ee saaran, in qaabkooda uu haddu yahay difaac. waa gartay waaya wararka Lubnaan haddii intaa ku dhaafna Maxamed xagga Gaza aynu eegno wadahadalladan dhex maray sirdoonka Masar iyo mas'uuliyiinta Xamaas maxay macnaa u sameynayaan? Israa'iil maanta ugu dambeysay 5 qof bay dishay, weeraradii way sii wadaa, xadgudubyadiina way sii wadaa. maxay arrintani noqon kartaa? culays fara badan oo waxaa jira Masar haysta, maadaama ay saxiixayaasha ka mid tahay heshiiskan. qaraarka golaha ammaanka kasoo baxay ee tirsigiisu yahay 28/3 oo mas'uuliyad saarayo inay wada shaqayn dhow la yeelato Israa'iil, in ilaa hadda la maareyn layahay in Israa'iil xadgudubka ay ku sameynayso xabad joojinta la joojiyo. Xamaasna si cad ayay u sheegeen in aynan sii socon doonin xabad joojintan lagu xadgudbayo, loo baahan yahay dhinacyadii wax ka saxeexay inay arrintan tallaabo qaadaan. waxaana muuqata qaabka Israa'iil u dhaqmayso in ay ku riixayso xabad joojinta in ay burburto, maadaama Israa'iil ay ka cagjiidayso in wejiga labaad loo gudbo. waxaa kaloo ayadana culays badan ka taagan yahay arrimo aan lagala tashan Falastiiniyiinta, in la mariyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay, Maraykankana ay ku dhib badan tahay siduu ku meel marin lahaa. ballankii uu qaaday inuu xakameynayo Israa'iilna ay ku cuslaatay. warkan hadda la kala qaadanayo ururka Xamaas iyo Masar ay kala qaadanayaan mid wax badan kordhin doono uma eka sida khabiirada hadalku dhigayaan, gaar ahaan kuwa arrimaha Falastiiniyiinta aad ula socda. Xamaas uma muuqato inay hub dhigayso ama isdhiibayso, cagsigeeda ayaa dhab ah leeyahay. Xamaas xabad joojinta waxay uga faa'iideysanaysaa in ay raadiso dadka faraha badan ee burburka hoostiisa ku maqan. weli dhinaca Israa'iil dad badan kama maqna, dadkii inta badan waa la qaaday, meyd iyo wixii noolaaba. laakiin weli waxaa jira dad la raadinayo. fariintan uu gudbinaya madaxa xafiiska siyaasadda ee ururka Xamaasna waxa weeye xaaladda sida ay u xun tahay ayuu rabaa in uu shakhsiyan u gudbiyo waddanka Masar. waa gartay waaya dhinaca kale waxa aynu eegno warkan Putin ka soo yeeray ee uu ku soo dhaweynayo hindisaha Donald Trump. inkastoo weli faahfaahin laga bixin, haddana waxaa leeyahay wadahadaladii ka dhacay Geneva oo Maraykanka iyo Ukraine ay yeesheen isbedelkii baa lagu sameeyey qodobadii markii hore uu soo jeediyey Trump ee ahaa labadan gobol Luhansk iyo Donetsk oo Donbass la isku yiraahdo inay wareejiso, labada gobol ee kale Kherson iyo Zaporizhia qayb ay ka baxdo, 600 oo kun ciidankeeda aysan dhaafi karin, NATO ay ka tanaasusho, nuclear warkiisa iska daa. arrimahaasi haddii isbedel lagu sameeyo Putin miyuu aqbali doonaa? qodobada uu Maraykanka soo jeediyo haddii isbedel lagu sameeyo, Ruushka khiyaarkiisa banaanka ayuu yaalaa. haddii si kale loo dhigo 28 qodob ee dowladda Maraykanka qortay, 28 laga qoray la taliyaha madaxweynaha waddanka Ruushka. haddii hal qodob oo kamid laga noqdo, Ruushka dagaalkiisa ayuu sii wadayaa. waxa weeye Ruushka ma ogolaanayo Ukraine ebed inay khatar ku noqoto waddanka Ruushka. qodobadan wax laga bedelay aad xustay, qolada riixaysa in wax laga bedelo rabto waa reer galbeedka. reer galbeedkana wax weyn uma tari karaan Ukraine. xaaladda Ukraine maalin ka dambeysa waa sii xumaanaysaa. waxaa u roon Ukraine inay waxay caynsan karto caynsato, oo ay qaadato
sida hadalka loo dhigay in wax isdhiibad u eg ay samayso maadaama aynan ruushka la dagaalami karaynin wadamadii shafka u garaacay waa ku taageerayni lahayn iyo qorshihii laga soo shaqeynayay 2014kiina ay noqdeen hal bacad lagu lisay waayahay waa mahadsantahay maxamed intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa daawadayaal barnaamijkii si aad ula socoto daawade barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda kusoo biir waa inoo barnaamijka xiga insha allah inta ka horeysa nabadgeli ku soo dhowow qaari online